السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waxaan idin leenahay soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaad halkaan Salmaan Yare official. meel kasta aad joogtaan waxaan idin rajaynaynaa caafimaad sida anaga caafimaad u qabnaynaa caafimaad u qabtaan. hadda idin leenahay khayre soo dhawaada waxaan idin heenaa maanta program ninkan barasho ma kartaan waa hore u taqaaniin waa Maxamed Yare. maanta waxaa iga maqan xaaska iyo caruurta. maanta aniga asiga programkooda marka programka maanta aniga asiga wadano markaniyo waxaa rabaa inaan kaaga sheekeeyo qiso hadda ka hor dhacday aan rabaa inaan kaaga sheekeeyo qisadaas oo qiso wadato murti iyo experience wax kasta wadato. niyo qisada waxay ahayd wiil dhalinyar ah ayaa maalmaha ka mid ah asigoo isdili raba ayaa waxaa arkay oday wadada maraya. odaygii yaa ku yiri adeero maxaad isku dilaysaa dhibka ku haysto aad isku dilaysid waa maxay? wiilkii wuxuu yiri adeero waxa ay haysto family problem dhinaca family problem weyn haysto oo maara u waayay xal u waayay. odaygii yaa ku yiri adeero waxa xal loo helayna adduunka ma jireen xal waa jiray xal waa la helayay bal ii sheeg arrintan ii sheeg waayo maadaama aniga ka weynaha ka way aragsanahay in aan xal ku helo laga yaabay. bas cuniga wuxuu yiri adeero sheekada sidaan u dhacaysaa dhageyso. maalmaha kamid ah ayaa waxaa sheekaysanay gabadhin waxay wadatay caruurtii wadatayna waa gabar weyn oo qaangaar ah. waxaan ku ballanay inaan isguursano marka anigana maadaama guurkii iga aqbashay anigana raalli ka ahaa waxaa u tagay odaygii aabahayga ahaa waxaa ku dhahay aabo waxaa jirto gabar aan wada sheekaysanay laakiin caruur ay wadataa gabadheedna waa gabar weyn oo qaangaar ah. odaygii ayaa yiri haddaad idinku ku heshiiseen oo raalli iskaaga tihiin soo dhawaada aabo. wiilkii gabadhii ay reerkeeda ka doontay waa lasoo guursaday islaantii gurigiyaa la keenay. odaygii haddana wuxuu sameeyey gabadhii uu wiilkiisa aabaha u ahaay ayuu guursaday. gabadhii uu aabaha wiilkiisa u ahaay ayuu guursaday. odaygii islaantu sodog uu ahaa gabadhii dhashay wiilkiisa aabo u aadisnaa ayuu odaygii guursaday. odaygii markuu gabadhii uu guursaday gabadhii hooyadeeda odayga muxuu yahay sodog sababtuu sodog ugu noqday waa maxay? wiilkiisi ayaa qabo. odaygii baa gabadh uu sodog u ahaa u naqatay haddana sodog waxay sodog ugu naqatay gabadheedii ayuu guursaday. wiilkii gabadhuu aabaha u ahaa ayaa waxaa guursaday aabihiisi. waxay u naqatay wiilkii gabadhuu aabaha u ahaa hooyo. hooyaa loo noqday. markay meesha noo maraysay oo wiilkii gabadhii hooyo ay u noqotay wiilkii ayaa wiil u dhashay. odaygii aabihiisina waxaa u dhashay wiil. gabadhii odaygii aabihiisi uu guursaday wiilkii aabuu u ahaa wiilkuu dhalay waxay u tahay walaashiisi. sababtay walaashiisi u noqotay waayo aabaheedii ayaa dhalay. marna waxay u tahay ayeeyo waxay ayeeyo ugu noqotay wiilkii hooyadeedii qabay oo iyada aabaheedii ahaa aabihiisii ayaa guursaday. markaas akhyaaray sheekada halkaas ayay noogu eg tahay caawa. sheekada waa tixane waa ilaa part 1 hadda part 2 part 3 part 4 ilaa part 6 ku eg tahay. ayaantan waa idinka daani videoyada lama soo gelin mashquulka ayaa iska badnaa. إن شاء الله بإذن الله كاغا سو دغينا لايك كومنت كل كسو بخينا سبسكرايب كي لايك كي كومنتيغا waa xaqiini dhiirgelinta xaqiini ayaan ka jirtaan soo dhiirgeliya qiyaaray sidaas iyo